agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo marbixinta maalinlaha la wadaagayay bulshada ayaa waxa uu ka waramay xaaladihii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus. Agaasime Xergeeye waxa uu sheegay in xaaladda kiisaska xanuunka coronavirus ee Soomaaliland haatan ay marayso 5 qof oo ku kala sugan gobolada dalka. Waxa kale oo agaasimintaasi ku daray in labadii qof ee ugu horeeyay ee laga helay xanuunka coronavirus ay haatan ladnaadeen halka kiisaska cusubna ay xaaladooda fiican tahay. Agaasime Maxamed Cabdi Xergeeye waxa uu ugu baaqay bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay sameeyaan feejignaan dheeraad ah isla markaana ay la socdaan tallaabooyinka iyo go'aamada ka soo baxaya guddiga heer qaran iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka. maanta oo ay bishu tahay 14 Abriil 2020 waxa ay wasaaradda horumarinta caafimaadku idinla wadaagaysaa wixii warbixin ahaa ee maalinlaha ahaa ee xanuunkan ku soo kordhay iyo xaaladda guud ee dalka. waxaan jecelahay inaan bulshooyinka Soomaaliland la wadaago oo aan u cadeeyo kaysaska la cadeeyay ee Soomaaliland ilaa imika laga helay inay yihiin 5 case. waxa kale oo muhiim ah oo aan u sheegaynaa kaysaskaasi labadii case horena inay ladnaadeen oo ay fiican yihiin. 3 case ee dambana inay yihiin dad aan lahayn wax calaamada laakiin shaybaadhkooda uun laga helay xanuunka. marka 3 case dambe iyo labadii case dambaba wasaaradda horumarinta caafimaadku waa ay la socotaa si joogto ah ayay ula socotaa. waxaanu la leenahay xiriir joogto ah oo aanu xaaladooda caafimaad kaga warhayno. haddii aan idin sheego caseska la screen gareeyay ee laga hubiyay xanuunku waxa weeyaan 1601 da wax calaamado ah oo lagu arkay oo laga shakiyay ma jiro. sida aad la wada ogsoon tihiin waxa iyadana aanu ka qaaday shaybaadho dad oo aanu shaybaadhada mar kale haddana aanu eegaynaa oo aanu diraynaa iyadana aanu wixii ka soo baxana la wadaagi doono bulshada. waxa kale oo aan jecelahay inaan bulshada Soomaaliland aanu sheego in shaqaalaha caafimaadku ay heegan u yihiin gobol kasta iyo degmo kasta oo ay jiraan shaqaale la tababaray oo u baahan waxay tababar u baahnayeen la siiyay oo u adeegi doona qofkii u baahda xaalad caafimaad ama in laga gargaaro dhinaca caafimaadka ee xanuunkaas haddii uu gobolada ama degmooyinka u baahdo. geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye waxa uu beeniyay hadallo lagu baahiyay baraha bulshada kaasi oo sheegay in labadii qof ee laga helay xanuunka coronavirus ay ka baxsadeen xarunta wasaaradda caafimaadka. waxa uu hadalkaas agaasimigu tilmaamay hadal waxba kuma jiraan. waxaan shalay iyo maqlayay warar huuhaaya oo sidii ay dadku ay yihiin dad xiran oo maxaabiis la leeyahay hebel baa baxsaday iyo hebel baa baxsaday. dadku ma aha maxaabiis waa dad caafimaad arintiisa ku jira oo la socda dhaqaatiirta. marka ma aha dad la jeel la geeyo meel lagu xiray ma aha. marka dadka waxa qoraya inay haddaanay caafimaadka garanayna inay bulshada jahawareerka ka daayaan baa fiican. waxa la yiraahdo wuu baxsaday qof meel lagu hayo oo meel lagu ku xiran baa la yiraahdaa wuu baxsado dadku jeel kuma jiraan. dadkaasi wasaaradda horumarinta caafimaadku way la socotaa xiriir joogto ah bay la leedahay. habeen iyo maalinba dhaqaatiirtu waanay booqdaan waanay la hadlaan waanay arkaan. waxaana ilaa imika aan idin cadeynayaa inaanay wax xanuuna iyo wax xaalado ku soo biiray midna aanu jirin.